صدح آياتك لغو برتا وصدح وكو لو صدح حيهين صدح هاس inaad jid la marto inaad jabal la gasho inaad jidin la quudato saddexda آيات لغو برتا ayaa dad lagu bartaa inaad jidin la cunto iyo inaad jabad la marto inaad jidin la quudato inaad jid la marto iyo inaad jabad la gasho inaad jabad la gasho saddexda waa dad lagu bartaa bal faahfaahi saddexdaas iyo sida kale yihiin inaad jidin la cunto ama jidin la quudata ayaa dad lagu bartaa waa ko waayo qofka markii ay hunguriga soo dhaxmaro ilaan hunguriga waa kan ugu weyn rag waxa la yiraahdaa walaaleeyana iskuna diro aadiya qofka markay wax idin dhaxmaraan oo ceesh idin dhaxmaro oo waxa weeye hunguriga idin dhaxmaro waad baranaysaa aadiya inuu qof iimaan kala goosataan wax kala goosataan ama wax wadaagtaan isu dhiibtaan aadiya waad baranaysaa ma qof iimaan sanba aadiya ma qof iimaan laba ma qof han weyn oo hunguri weyn oo naftiisa kaliya wax la jecelba aadiya ma qof in wax lala quuto oo wax lala wadaago oo wax lala cuno oo dadku wax qaybsadaan ogolba ama la socdo ilaa mustaqbalba qofka waad baranaysaa waxaana kaaga soo baxaya in aad mustaqbalka dama ama waqti dama qof aad la sii shaqeyn karto ama aad la noolaan karto ama aad wax la wadaagi karto uu yahay inuusan ahayn halka waad ku ogaan kartaa waa warqad taasi waa inaad waatan koowaad wax la cunto inaad jidin la cunto ama wax la cunto hay'atan labaad inaad jid la marto inaad jid la marto waxa weeye qofku haddii aad jid wada martaan ee aad sheekaysataan wax badan baad ogaanaysaa waayo aragnimadiisa aad ogaanaysaa maskaxdiisa intay dhantaad ogaanaysaa deeqsinimadiisa iyo waxbixintiisa aad ogaanaysaa laga yaabo channelka inuu kaa go'o haddii qof marka jid wada martaan oo adiga channelka kaa go'o hadduu qof wanaagsan yahay channel buu ku siinayaa laakiin hadduu waxa weeye qof bakhiil oo eber u yahay waxba kama helaysid laba nin baa hadda ka hor waxaa la yidhi jid wada maray wuxuu yidhi niyahow ama iqaad ama aan ku qaado haye waa in waxaan laazim midkood in la qaado jidka wuu dheer yahay buu yidhi ama iqaad ama aan ku qaado macnaha uu kala jeedo waxay ahayd warniyow jid baan ku jirnaa safarkana wuu dheer yahay sahaydana waa yar tahay si aan u daalin ii sheekay ama aan kuu sheekeeyo qaaditaanka waxa loo bedelay in sheekada taaba laga soo sheekada qofku ku sheekaynayo ma dareemaysid wax badan baad gudbaysaa waxa kale lagu ogaan karayaa jidka qofka inaad la marto aad adeegiisa iyo kartidiisa inta la egtahay ma qof dhaqso daalaya ma qof calaacal badan ba ma qof tabar yar ba marka laba saddex saac socdo uu iska harayaa cay wey ma nin adag oo nin karmeed oo nin rag ah ba mise waa nin jilacsan oo cay ah oo waxa weeye liitan waad kala ogaanaysaa markaad ninkii jid la marto oo raf iyo dhib aad isla martaan waad ogaanaysaa taana markaad jid la marto iyo markaad jid la cunto ama qood la cunto inaad qofka intaad ka baran karto waynu haynaa tan saddexaad oo qofka lagu baran karo waxa weeye inaad jaba la gasho inaad la gasho macnaheedu inaad meel juq cariiri la gasho ma ahan macnaheedu qofka waa inaad raas wadaag noqotaan ood wadaag noqotaan la degto qofka markaad la degto ood wadaag noqotaan waa tan ugu waxa weeye ugu macquulsan oo wali dadka lagu baran karo ayay ila tahay waxaad ogaanaysaa qofkan dabeecadiisa dhaqankiisa akhlaaqdiisa asluubtiisa waxbixintiisa waxdeeqiisa wuxuu gala iyo wuxuu gudo waad baranaysaa qofka haddii aad jabal wada gashaan ood meel wada degtaan jabal inaad wada gashaan macnaheedu waxa weeye inaad meel wada degtaan raas wada degtaan qofka waxaad baranaysaa wuxuu yahay guud ahaan waad baranaysaa oo waxa la yiraahdaa waa inaad jabal la gasho saddexda arin ayaa dadi isku baran karaan ama lagu bartaa Soomaalidu waxay tiraahdaa si kasto oo bini aadan u garanayso ama qof u garanayso ma garanayso qofkii aad garanayso ma garanayso macnaheedu waxay tahay bini aadanka si kasto uu leeyahay hebel waad garanaysaa waxba kaaga qar waxba wali duugan dhaliilo badan iyo wanaag badan labada qofka labada uu leeyahay ayaa wali duugan oo dad wali ogaan karin waxa uu leeyahay marka saddexdan waa saddexda ugu macquulsan ee qofka lagu baran karo saddexdan xikmadood ama saddexdan mahmaahood ayaa soo koobayo waxa ugu wanaagsan ee qofi lagu baran karo sida cadba hadaad tiraahdo saaxiibkii weeyaan waa saaxiibtay oo 5 sano aqaana 6 sano aqaana 10 sano aqaana saddexdan ay ka maqan yihiin wali qofkaad ma aad baran xana ku degdeg ma kuleen ama waa qofka ugu wanaagsan ama waa saaxiibtida khaaska ama waa saaxiibkii khaaska saddexdan haday meesha ka maqan tahay waxay cadeynaysaa xikmadaani inaadan wali xataa joodaa joogin ama haaf joogin saddexdaas qof walba loo saaxiibka ma la madhay soo ku dhimanta